بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رهانتي ورئيسك أيق قاعدي عاوة جريدها وعنصر كاملة كسب بحدا مجال دوحة وأفكار إنجليزية لو قرأ على هذا جولف تايمز. رهانتي سؤال بدن يجوي سمايلان waxaan u ka bilownay ujeedada socdaalkay halkan wuxuu ahaa iyo si aan igu suurta gelin baan u cadeeyay in aan anigu doonayay in madaxda wadankan qadar in cid kala kulmo hasiyeeshee waxaan aad u faahfaahiyay qadar Somaliland oo aan ka bilaabay Somaliland si ku timi waxay ahayd Somaliland saal oo socono in riyadii ahayd in Soomaali oo midaysan oo calankeeyata dalkeeda inay ridaas baabacday ridaas waxay qariga Afrikanaad iyo qariga Shartanaad iyo kii maxaa Soomaalidii kontraadkii lixdanaadkii inta waxa jirtay dadku waxa aad u wada hadlayeen in Soomaali weyn la helo laakiin ridaas waxa way dhamaatay waxaana ku dhamaatay markii dawladda Djibouti ay xorriyad qaatay wadan gaar noqotay waxa kale ku dhamaatay markii xuduudaha Afrika ay la gaaray in la bedeli karin ummadii Soomaaliyeed ee Kenya iyo Ethiopia degan noqdeen dad kamid ah qoomiyadaha ay degan yihiin saas awgeed bay Somaliland xaq u yeelatay inay dib soo noqoto waxa kale oo kalifay in xaq u yeelatay in Somaliland mar labaad isku tagto maxay ka faa'iiday muxuu ahaa midnimadii waxa ka faa'iiday burbur xoog leh oo farabadan oo aan soo koobi karaynin waxa ka faa'iiday konton kun oo qof oo la waayay iyo baraka iyo magaalooyinkii Somaliland oo la burburiyay taasna waxay khasaare kale oo naga soo gaadhay muxuu ahaa midowga aan la midownay wixii loo jiray Soomaaliya marka haddii caynka tahay Somaliland dadkeedii bay isu yimi 19 bishii May iyaga go'aan ka qaatay go'aan shacbi oo ah inay Somaliland dib soo noqdaan inay madax banaanida Somaliland noqoto waxa cadeeyay distoorkeeda cadeeyay oo la afti loo qaaday oo 100% ay go'aansadeen runtii in distoorka ay afti u codeeyeen taasna waxa markaa ka dhigtay Somaliland inay tahay mid dhabo jirta waxaan kaloo ka sheekayay Somaliland 22 ka sano jirtay guulaha gaadhay dawlad ama dal aan dawladda laga caawin oo dhammaan hay'adihii dawladnimo samaystay doorashooyin samaystay ciidan leh police leh jaamacada leh lacag gaar leh passport gaar leh oo maanta wax ka dhimanay waxa marka la eego qodobada Geneva Convention ee lagu eego dawladnimo in Somaliland ay u dhamaystiran tahay baa runtii si aad iyo aad u balbalaariyay oo aan ka shakiyay su'aasha waxay hadda maxaa loo aqoonsan hadii intaas jirto waxaan tilmaamay Somaliland waxa loo aqoonsan waayay runtii inay tahay laba qodob waa qodobka koowaad waxa weeye waxa ay wadamo fara badan Afrika ku yaala waxa ka baqayaan hadii qadiyada Somaliland la ictiraafo in wadamadaas iyaguna ay u noqoto tusbax ama ku furmaan maadaama qoomiyada kala jaad wadamo fara badan oo haray naga xigay Afrika ay ku jiraan intaas noqoto in marka sanduuq la furay marka aan la garan karo ku damayn doono طبعا interest dana gaar ah cid waxa la aqoonsan marka dan gaar laga leeyahay inay wali la gaarin heerkii ay cidi gaadhay in dan gaar oo la jecel ah oo ay Somaliland doonayso in la aqoonsaa taana may dhicin waxa kale ku jira qaarada Afrika wadamo ka soo horjeeday guuristaaga Somaliland oo wadanka Masar oo kamid ah wadamada Yurub taaniga kamid ah ku yiri ka soo horjeeday marka taas ay tahay runtii Somaliland aqoonsan waayay wadamada reer galbeedkuna bariihan waxay yiraahdeen anagu inaan aqoonsanay in marka hore ku noqdo waxa loo yaqaano Africa Union hotayna taraf laakiin se waxaan tilmaamay oo doonayay inaan tilmaamo in Somaliland inay u qaanto in la ictiraafo oo ay kamid noqoto caalamka 20 kaas waxay ku guuleystay in xafiis ka furto wadamo fara badan adduunka waxay ku guuleystay in intaas oo wufuud oo fara badan oo kala jaaday in Somaliland inay yimaadaan waxay Somaliland ku guuleystay inay passport u gaaray samaysto oo dadna ay wadamada u bixi karto waxa ku guuleystay in muxuu ahaa inay dibadda xafiis ka furto gudahana xafiiso wadamo ajnabi in ay ka furtaan waxa kaloo ka sheekay doorashooyinka ka dhacay Somaliland
Somaliland waxay kala tahay waddan dimuqraadiya waa viable state waa qaran shaqeynaya oo de facto state ah oo xiriir la gala iyo heshiis la gala wadamada adduunka dabeedna doorashooyinkaas waxaa doorashada laga soo bilaabay ilaa 2002 labadii 2003 2005 2010 dhammaan doorashooyinkaas waxaa doorashooyin si dhab u muujinaya gaar ahaan tii u dambeysay 2010 June la galay waxay ahayd doorashadii xisbi mucaarad uu ku guuleystay oo si rasmi ah oo official oo wanaagsan xilkii loogu wareejiyay madaxweyne cusmaan la doortay taas oo runtii Afrika inteeda kale ku yar waxay guul weyn oo Somaliland u soo hoyatay ay ahayd waxaa kaloo ka sheekayay runtii waxyaabaha ugu dambeeyay ee haatan iminka Somaliland muddooyinka ugu dambeeyay ka socda waxaa Somaliland ka socda in ay muxuu ahaa shirka ka dhacay London lagu go'aansaday in wada hadlaan Soomaaliya iyo Somaliland iyagoo laba entity oo isku mid ah oo siman inay iyagu masiirkooda ayay halka dhigan ay ka wada hadlaan ka go'aansan taasna waa hadal furmay halkaas ugu socdaa wararka ugu dambeeyay waxa weeye dowladda Qatar dowladda Soomaaliya waxay Qatar ka codsatay in la dhexaadiyo Somaliland iyo Soomaaliya dowladda Qatarna way ka yeeshay marka taasna la filayay inay noqoto qolada u soo horeeya ee dowladda cusub Soomaaliya ka dhalatay ay la yeelato dowladda Somaliland waxa kale oo aan uga sheekay si ay Somaliland dhaqaalahaan u soo kabanayso horumarka xagga bulshada xagga kaabiyaasha dhaqaalaha iyo xagga dhaqaalahaba si uga soo kortay si uga soo kabacday ay noqotay in maanta sanad walba xoolo gaaraya ilaa 2 milyan bar xoolaha wadka laga dhoofiyo oo qarashada oo intooda badan ay Soomaaliya ay tagaan waxa kale oo ka sheekay bariyahan daba inay socoto waxa loo yaqaano shirkado caalami oo gaar xagga biroolka ah iyo gaas dabiiciga inay baaris ka wadaan ayna ku dhiiradaan inay maal gashadaan Somaliland waxa kale oo aan ka sheekay muhiim ah xumaha warshada weyn oo Coca-Cola soo saarta oo lacag gaashan 10 milyan ku guuleystay inay Somaliland inay geliso taa kale waxay tahay runtii talaabooyinkaas waxay tilmaamayaan in Somaliland ay dhaqaale ahaan soo kamayso waxaan kaloo tilmaamay oo ku soo gabagabay oo ugu baaqay wadamada Carabta in ay ku ekaano kaliya in dibadda ka egtaan waxa ka socda wixii la isku oranjay Soomaaliya in ay waliba si gaar ah Somaliland ay u soo engage karayaan oo ay la soo kulmaan ay xafiiska ka furtaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ay saasoo kale ay ogaadaan Somaliland missions in laga furan karo wadamada Carabta taas marka ay keento in wax fara badan oo imika loo kala sheekeynayo in dhexdooda ka baxaan si toos ah ay wada xiriir karaan ay u fududeyso in wada xiriir karaan isla markaana iyaga u fududeyso inuu fudud ku yimaadaan Somaliland ay ogaadaan xaqiiqada dhabta ah ee marka imika taala Somaliland halka ay ka ogaadaan taasna runtii waa talaabo aan aad iyo aad uga codsaday muxuu ahaa wadamadan khaliijka waxaan kaloo tilmaamay xataa wadamada khaliijka laftooda imika bariyahan dambe ay bilaabeen inay Somaliland engage karayaan gaar ahaan waddanka Kuwait oo lacagta ugu deeqay 10 milyan dollar u dambeeyay laba madaarka Hargeysa iyo madaarka Bare lagu sameeyay waxaan kaloo ka sheekay muxuu ahaa hay'adaha khayriga ee waddanka Imaaraadka Carabta iyo waddanka Qatar intuba inay ka wadaan talaabooyin khayriya inay ka wadaan si gaar ah dowladda Imaaraadku inay naga caawinayso xagga biyaha oo runtii ay keentay muxuu ahaa si ay calaamad fara badan ismaan ugu qodayaan talaabooyinkaas waxay muujinayaan in dhinacii khayraadka ama dhinacii xagga waxyaaba khayrka inay runtii ku taabseen oo caawimooyin bixiyaan laakiin in ay furaan ilbaabka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya wadamada khaliijka iyo Somaliland